ku soo dhowaada qaybtii afraad oo ah qaybta ugu dambaysa sheekadii boqortooyada Ruwaaga oo la xiriirta Diiriye oo ka lumay qoyskiisa una galay boqortooyo Ruwaayadu leeyihiin. Sanado badan ayuu la noolaa cunida hilibka cayriin iyo la hadalka Ruwaaga ayuu bartay intii uu Ruwaayada la noolaa. Waa sheeko xiise gaar ah leh. qaybihii hore haddii aadan soo daawan fadlan soo daawo si aad ula socotid meesha sheekadu marayso. qaybtii afaraadne waxay ku bilaabanaysaa sidaan: qoyska si toos ah uma soo dhexgeli karo oo muuqaalkiisu wuxuu u ekaaday mid bahal. hadal aadame kuma hadli yaqaan, kelmado tirsan ma ahane. waxaase intaa uga sii daran ma garanaya reerka dadka jooga, waxaan ka ahayn hooyadii oo markaa islaan duq ah mooye. isagana waxaa la aaminsan yahay inuu waa hore dhintay. odaygii cidda ma joogo oo waxa uu xijaabtay 2 gu hortood. waxaase hadal farxad geliyey uu ka maqlay hooyadii oo la hadlaysa gabar qoyska ka mid ah iyadoo leh: maandey duhurkii marka la gaaro ariga inta quricii dheeraa ku soo rugtid guriga imow. gabalgaabkii marka qorraxdu qabowdane ariga hiisho inoo ka gur, anigaa soo aadaya arigee. Diiriye waxa arrintaa ku abuurtay yididiile oo mar labaad ciddiisii uga mid noqon karo. haddii uu xoogaa joogay waxa uu u laabtay hoshii Ruwaayada. habeenkaas hurdo ma ladin, ka sii darane waxaa laga dheehan karay xaalad gooniya. haddii maalintii xigtay la gaaray una ku xisaabtamay ballantii hooyadii gabadha kula hadlaysay, galabnimadii wuxuu u soo kici timay aaggii uu ku filayey in arigii markaa marayo. haddii uu ku soo dhowaaday waxa uu dusha ka arkay hooyadii oo keligeed ariga la joogta. inuu ka cuno ariga maahan ujeeddadiisu iminka, iyada baqdin kama uu qabo. hase ahaatee wuxuu ka baqay cid kale oo aagga joogta. markii arigii uu ku soo dhowaaday ayuu ka soo diday baashii uu ka soo socday. hooyadii waxay istiri arigii dawacaa soo gashay. waxa ay iyadoo dheeraynaysa u soo dhaqaaqday dhinacuu arigu ka soo diday iyadoo ku qaylinaysa: hooy hooy dawaco. haddii ay gaadhay meeshii waxa ay aragtay qof bahal u eg, laga naxayo jirkiisa. qaybo badan oo ka mid ahne qolof leedahay, sidoo kalena dhogor gaashaysay qaybo badan oo jirkiisa. way istaagtay iyadoo naxsan. hadalkiibaa ku dhegay, waa u dhaqaaqi wey. Diiriye waa dareemay in hooyadii ka naxday. waxa uu yidhi isagoo hoos fiirinaya: hooyo. markaa waxa ay xasuusatay riyooyinkii ay ku arki jirtay wiilkeeda, waana garatay waa beer wax dhar waa joogi kari wey oo ku soo oroday. markaas laabta saartay iyadoo ilma indhaheeda ka hoorayso. isaga laftiisa dareen kuma yara. waxa uu dhankiisa ka bilaabay oohin farxad ku dheehan tahay. haddii ay la hadashay uma jawaabayo, hase ahaatee wuu fahmayaa wax walba oo ay dhahdo. markaas ayay go'ay huwanay dusha u saartay oo inta arigii dhanka aqalkii u soo rogtay la soo aaday ciddii meeshay deganayd. haddiiba waxaa loo meegaaree meel la dejiyo, dadka lama dhexgeyn karo oo waa laga baqayaa. laga dhaqay miid wasakha oo dushiisa saarnay. waxaa loo dhigay raar weyn oo faraqyo qurux badan leh, waxaana loo qalay wan weyn. ha yeeshee maxay kuugu taal? raarkii kuma seexan oo dushiisa waaba ka cararaya. hilibkiina inta saa u uriyey ayuu dhan isaga tuuray. hase ahaatee waa dhowaan soo noqod oo barashu u baahan yahay. maqnaanshihiisa uusan ku soo noqon xaruntii boqortooyada Ruwaaga durba waa la tabay oo waxaa la ogaaday inuu aadamo u cidgalay. waxaase la diray kooxo soo jeedaaliya cidda uu la jooga Diiriye. waxayna soo ogaadeen reerka uu la joogo iyadoo ay dareemeen inuu yahay reerkii uu ka dhashay. hase yeeshee arrintaa waxay aad uga xanaajisay boqorkii Ruwaayada, waxaana uu amray in weerar lagu qaado meesha Diiriye joogo, isagana lagu soo cesho xarunta Ruwaayada. habeen saq dhexe marka dad oo dhan hurdo ku jiro ayaa waxaa reerkii soo gaaray boqolaal Ruwaaye ah oo doonaya inay qaataan Diiriye. ciddii waa ku kaceen waxaana ay u dhaqaaqeen dhicinta wiilkooda. yur baa meel walba ka yoostay. darasyadiibaa isu soo baxay oo soo ciidamiyey. hase yeeshee bahalku waa isku habarwacday oo tiradiisu waa boqolaal. xoolihii ayaga xeraday jabsadeen. si ahaatee waxaa meel bannaan ku celcelinaya dadkii darasyada ahaa. goor ay reerkii oo dhan qaadan rabaan ayaa waxaa ka badbaadshay oday guuleed oo cidda daris ahaayeen. qori halkalyaale ah oo ayaantaa loo keenana haystay. haddii uu xabada ku riday waa kala cararay Ruwaaga. subaxdii haddii waagii baryey waxaa reerkii talo ku gaaray in meesha ka guurto iyadoo baqdin laga qabo in mar kale weerar lagu soo qaado Diiriye iyo qoyskiisa. waxayna u guureen meel magaalo ah oo dad badani joogo. Diiriyene wuxuu sii bartay habdhaqankii dadka, wuxuuna noqday nin wanaagsan kuna faraxsan nolosha uu mar kale ugu soo noqday qoyskiisii lana midoobay. intaas waxaa noogu dhan sheekadii boqortooyadii Ruwaaga
oo la xiriirtay diiriye oo ka lumay qoyskiisa una galay boqortooyo riwaayadu leeyihiin. Waad ku mahadsantihiin daawashada. Fadlan haddii aad channel ku cusub tahay, subscribe saar si ay kuu soo gaaraan mar kasta muuqaaladayada.